kulanti wacan oo wanaagsan daawada idil ahaantiima meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo habeennimadan caawa aynu ku falanqayn doono faa'iidooyinka iyo weliba dhibaatooyinka ay leeyihiin qurba joogtu. waa maxay qurba joogse waa maxay qolqol joog se maxaa faa'iido amba khasaare ah ee ay ku soo kordhiyeen qurba joogta dalka dib ugu soo laabanaysa waa mawduucyada habeennimadan caawa ah aynu barnaamijka ku falanqayn doono. haddaba mawduuca ugu horeeya habeenkan aynu ka hadlaynaa waa shaqada. gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geeli waxaad nooga warbixisaa maxay shaqaalaha iyo waliba adigoo ka xogaala bal hawlaha shaqaalaha qurba joogta iyo waliba adiga qurba joogta. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهورين برنامج كده دهياشيس ee ka qayb galayaasha baan salaamaya iyo bahda Universal TV haddaan ku soo dhawaado su'aasha shaqaalaha dawladda runtii markay eriga shaqaalaha way ballaaran tahay waxaan mas'uul ka ah shaqaalaha dawladda iyo qaybtiisa shaqaalaha dawladda waa qaar darban bixinta adeega dawladnimada isla markaana si ay u bixiyaan adeeg hufan waxa la soo mariyaa nidaam dah furan oo lagu tartansiiyo isla markaana waxa gudaha inoo soo gala shaqaale ku soo baxay hanaan hufan oo dah rogan sida ay noo qorsheysan ama hore u qabsoomi jirtay inta markaynu niraahno qurba joogga iyo qulqul joogga hay'adda shaqaalaha dawladdu male kala xadeynta iyo kala saaridda cidda tartanka galaysa waxa muhiim ah muwaadin Soomaaliland dareemayo. waa tahay Fatxiya waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijkani waxaad ka mid tahay ardayda ka qalin jabisay jaamacadaha ku yaala magaalada Hargeysa muddo 2 sano ah ka hor ayaad qalin jabisay ilaa hadda shaqo ma hesha. markan eego tameynaa shaqada anigu man helin shaqo muddo 2 sano aan ka soo maqnaa jaamacadii taasi ay ka mid tahay caqabadaha dalka yaala oo ay ka mid tahay wada shaqo la'aanta baahsan waddanka ka jirta taasi oo jirin cadaalad badan karnaa lagu soo xulanayo shaqaalaha dawladda laana imika anagu social workers baanahay marka la eego position-keegu taas wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada taasina waxa jooga dad aan ku munaasib ahayn. waa tahay marka adiga saameyn ma kugu yeelatay amba maxaad u aaneynaysaa in aad ilaa iyo muddo 2 sano shaqo heli weydid. waxaan u aaneynayaa dawladda because of waxaan jirin in qofku uu ku shaqeeyo fiilkii uu bartay oo dadkeena dhan baa ku shaqeynaya wada indirect qofkii fiilkii uu bartay kuma shaqeynaya waxa arkaysaa mid engineer oo ku shaqeynaya management waxa arkaysaa social worker ku shaqeynaya fiil kale marka waxa ahayd in qof walba uu ku shaqeeyo fiilkiisii oo maartay marka si nidaamkii uu marka dadka shaqeynaya ma qurba joogtay mise waa dadkii wadanka joogay meel qurba joog bay u badan yihiin dadka wadanka ka shaqeeya. waayahay cabdiraxmaan xuseen maxamed laftiisu wuxuu ka mid yahay ardayda ka qalin jabisay 2 sano ka hor jaamacadaha dalka ku yaala adiga laftada cabdiraxmaan shaqada aad sababaha u heli weeyday maxaad ku sabaynaysaa waxa weeyaan asbaabta shaqadan nagu kaliftay inaan u heli weyna ama fiilkan ku shaqeyn weyna waxay tahay dawladdii oo ka gaabisay inay shaqo siin weydo shaqaalihii u soo baxay wadankiisa ha ahaato dhalinyartii u soo baxday ee jaamacadaheeda ka soo baxday ee gudaheeda wadanka gudihiisa ka soo baxday waxa laga doorbidayaa oo ahmiyadda la siinayaa nin ka yimiday dalka dibadiisa waxa la markasta ahmiyadda la siinayaa la xoojinayaa oo gargaar iyo garab la siinayaa nin qurba jooga inankii maanta shalay taariibay maanta waxa lagu casuumayaa isagoo saaxiibka ahaa oo shalay halkan wax ku wada cunaysan waxa lagu casuumayaa isagoo qurba jooga adiga waxaad tagaysaa xagga hoose taana waxa keentay oo ka kaabisay waa dawladda asbaabtan shaqada u heli weynina waa sidaa daraadeed. waayahay cabdiraxmaan iyo waliba Fadxiya halkan waxa inoo fadhiyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha labaduba waxay saareen in dawladdu ay sabab u tahay shaqo la'aanta ay u heli waayeen oo laga doorbiday qurba joogta arrintaasi ka war. bismillaahir rahmaanir rahiim wala labadu aad u mahadsan yihiin su'aasha muhiimka waxa weeye ilaa imika shaqada dawladdu ma gaadhay heer qurba joog soo xiiseeyo oo kaalmaha dawladda ee middle management-ka inay qabtaan waa laga yaabaa shaqadu 3 qaybood bay u kala baxday qaybna waa qaybta sare oo wasiirada iyo xildhibaanada iyo maamulada sare oo magacawga madaxweynaha ku yimaada inna waa middle level management-ka ama kuwa dhaxo waxa ugu sareeya A iyo B iyo C iyo D mushaaraadkooda iyo sharaftooda iyo xasaanadooda iyo xoolahooda waxa su'aala miyay gaadhay heer inta qurba joogga inoo soo dhoofo oo ka shaqeeyo wasaaradaheenu oo $100 iyo $200 wax ku siman intuu ku qancaawi nala shaqeeyo haddaynu taa gaadhno waxaan isleeyahay shaqadii dawladdu marka kor bay u kacdayo haddii Mareykanka Ingiriiska looga soo dhoofo shaqada dawladeed in la qabto oo middle level management waxaan isleeyahay waa dareen u baahan inaynu si caadi ah iskula faaqidno hoos u galnay anigu intaan xogta hayo wali shaqada dawladdu ma gaarin heer ay qurba joog intuu soo dhoofo aw qabtay wali malaha ma gaarin maan isleeyahay. waa tahay Cabdikariin Axmed Mooge wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda qorsheynta qaranka sidee baad u aragtaa khasaaraha amba faa'iidooyinka marka laga hadlayo dhanka shaqada ee qurba joogtu ay ku yeelatay wadanka.
aad iyo aad baa umahadsantihiin anigu waxaan isleeyahay anigoo dee runtii labadaba isbarbardhigii wanaagga iyo dhibaatooyinka dadka qurba joogga ay ku leeyihiin somalilan markaad laakiin su-aashu ay ku saabsan tahay oo shaqadoo keliya waxaan isleeyahay somalilan dadkii ay u baahnayd umay soo noqon somalilan waxay u baahnayd dad dhakhaatiir waxay u baahnayd aqoon-yahano jaamacadaheena wax ka dhiga waxay u baahnayd dad xirfad leh oo sancada sida qurxinta iyo bilcinta guryaha oo kale imika suuqaas suuq bannaan buu ahaa niman caraba baa haysta somalilan hadday dadkeedii qurbaha ku maqnaa ee abaalka u sheeganaya hadday u soo noqon lahaayeen iyagoo xirfaddii iyo cilmigii ay ka soo barteen waddamada yurub hadday la soo noqon lahaayeen meel bannaan bay runtii awdi lahaayeen waad ogtiinoo dadkeennii maanta xanuunka indiya iyo meelo fogfog bay u tegayaan oo dhaqaale yar ay haysteen uu kaga baxayaa marka dadkii dhakhaatiirta ahaa ee somalilan u baahnayd ee diasporaha ahaa ee qurba joogga ahaa may soo noqon somalilan halka mushkiladu taala waxa weeyaan waxaa soo noqonaya dad aqoontii ay lahaayeenna aanay ahayn aqoontii somalilan u baahnayd waxay qortaan shaqooyinka yaryar imika hay-adaha project managers iyo program managers waxaa dadka codsadaa waxay u badan yihiin dad qurbaha ka yimi waana shaqooyin yararoo iska fududooda ardaydiina jaamacadaha ka baxa safarxyo oo kaliya ay qaban kari lahaayeen runtii hadaad u fiirsato imika kombaniyada hadaad u fiirsato hay-adaha caalamiga dadka soo buuxiyey waa dad markaasi runtii kasoo noqonaya yurub waxaanay ahayd in laysu dheli tiro uun somalilan dadka u baahan tahay iyo dadka imika soo noqonaya waayo cabdikariin axmed moge waan ku salaaman doonaa maxamed cali bile waa aqoon-yahan ka tirsan xisbiga maxaafidka ee kulmiye sanado fara badanna ka soo shaqeeyey wadamo fara badan oo caalamka maxamed maxaa kaaga baxay hadalka cabdikariin bismi illahi raxmaan raxiim anigu waxaan rumaysanay shaqo la-aantu waa wax baahsan waddanka ka jira waana siyaasadaha isbedelay 90kii ka horna dowladda loo wada shaqayn jiray wixii hadda ka dambeeyana dowladdu wax badan gacanta kuma hayso marka siyaasaddaasi istaraatiijiyadii lagu bedeli lahaana meel lama dhigin saasaa shaqo la-aan badan u jirta qurba joogga waan qabaa dad badan oo qurba joogga waddanka kusoo noqday oo laga yaaba inay shaqooyin qaateen oo dadkii waddanka hore u sii joogay ay ama ka cadhoodeen laakiin cadhada waa lagula wada kufay ayaan anigu qabaa oo marka uu qofku ay dhibaato haysato kulle cadhada cidunba kula dhaca marka qurba joogga dadka cadhada lagula dhacay bay ka mid yihiin laakiin waxaan qabaa qurba jooggu wax badan oo kala wanaagsan bay qabteen oo aynaan iska indhatiri karin dalkan imika dhismihiisoo kale sida loo dhisay iyo hantiday soo geliyeen iyo especially xagga ganacsiga xoog bay uga qayb qaateen wax badan bay soo dhiseen laakiin waa laga yaabaa meelaha yaryar ay ka muuqdaan meelo yaro dhadhan leh ayay qurba jooggu yaro buuxiyona ama hay-adaha u shaqeeya sida cabdikariim sheegay ama meelaha siyaasadaha marka meelahaas had iyo goor dad muuqda weeyo dadkii oo cadhaysan oo dhallinyaradii oo cadhaysan oo bilaa shaqi ah had iyo goor kula kufaanay qurba joog baa fursadeedii qaatay waa tahay siciid baan u yeeri lahaa oo marti khaasa caaweyn oo ah waa tahay siciid waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijkani waxaad ka mid tahay qurba joogga waddanka dib ugu soo laabtay ilaa 2008 ayaad waddanka joogtay muddada 10 sano gaadhaysay waddanka joogtay maxaa idin qabsoomay ee horumar ah mahadsanid waxyaabaha qabsoomay horta aad bay u fara badan yihiin laakiin waxaa muhiima marka hore in la ogaado marka laga hadlayo qurba joogta waa noocyo badan yihiin waxaynu ku soo noqdaan qaabab kala duwan qaar shaqooyin bay u soo noqdaan oo ayagu shaqooyinkoodii watay yimaadaan oo ganacsi iyo business iyo investment ay sameeyaan qaar aqoon bay la soo noqdaan oo aqoontoodii ayay gudbinayaan kuwa waddankoodii bay u soo noqdeen oo ay deegaan ahaan ugu soo noqdeen qaar waxaa jira ayaguna hay-ado u shaqaynayay caalamka ah oo shaqooyinkoodii isku dayay inay halkan usoo raraan anigu kooxdaasaan ka mid ah hay-adda IMTA ayaan u shaqaynayay 12 sannadood waddanka Finland baan ka imid bayskiguna waa xagga marka shaqada aan ka qabanay waddanka marka haddaan usoo dhaadhaco waxa weeyaan dad aqoon-yahano ah oo inta badan caafimaadka bartay ayaanu waddanka keennay barnaamijkaas waxaa la yidhahdaa mida finsom runtii reer Hargeysa iyo reer Somaliland aad ayay ula socdaan mashruucaasi dhakhtarkan weyn ee Hargeysa Group Hospital ayay ka howlgaleen 2008kii ayaana la bilaabay runtii markaan imaneynana dee isbeddelka waad garanaysaayo ariga iyo iska meel ari daaqu ahaa haddana waad arkaysaan crowdka iyo sida uu service provider buuxa u noqday dadkaas soo noqday marka full reintegration ayay sameeyeen even waxay sameeyeen role kale qaateen oo invest ayay u wareegeen dad hadda noqonayana ma aha marka faa'iidooyinka la taaban karo oo mashruucan uu leeyahay waxaa ka mid ah qurba joogta noocan soo celin inay yihiin qaabka kuwa ku soo noqday hadda sidii barnaamijka aad ku arkaysay fadxiye iyo waliba inanka kaleba waxa ay dhaliilayeen qurba joogta oo ay leeyihiin shaqooyinkii waddanka aan anagu qaban lahayn ayay ku soo duuleen taa maxaad kaga jawaabi lahayd runtii taa waxay u baahan tahay daraasaad in la sameeyo oo hay-adaha ku macnaha sida wasaaradda shaqado kale ama qorsheynta ayaga horta samayn kara wixii survey oo loo baahdo haddii xaqiiq tahay laakiin intaan ogahay shaqooyinka
sida mar dhoweedna uu ka dhawaajiyey agaasimaha gudoomiyaha qurba joogta usoo noqonaysa $102 oo shaqooyinka hadii dowladda qaadanaysaa runtii ma arag laakiin inta badan waxay yimaadaan manager ahaan ama position ka waaweyn ay qaataan iyo inta badan siyaasadda kore taana waxa weeye waxyaabo runtii ayada laftigeedu faa'iido noqon karta oo ninka siyaasiga ah oo wasaarad ama agaasimo guud ka noqonayo contact uu leeyahay international community ayuu ku xiran yahay wadanka uu ka yimid ayaa laga yaabaa inuu ku soo xiro wadankii waxaan u arkaa inay waxyaabo fara badan ayagu laftigoodu qabtaan but still waxa weeye in la daraasadeeyo inta badan وحقاق aad baa sicid mahadsan tahay waxaa inala jooga xildhibaan Ibrahim Reite oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana sharci yaqaan xildhibaane intaad ku jirtay golaha wali golihiinu ma isla soo qaaday sharci ah in shaqooyinka ugu muhiimsan aan qurba joogta la sinay laga furiyeelo ee dadkii hore u sii joogayeen Soomaaliya ama boqol joogta maya taasi ma dhicin sababtoo ah mana aaminsani su'aal sax ah inay tahay sababtoo ah qurba joog horta waxaan u arkaa anigu wada reer Soomaaliland jira oo duruuftu geysay meel qurba ah advantage way yeesheen way heleen qaar badan way ka faa'iideysteen qaar badan kama faa'iideysan advantage-kii oo waxbarasho iyo xirfado inay maxaan ku raadayay yeeshaan aanay u suuro gelin dadkii reer Soomaaliland joogay marka anigu waxaan arkaa horta guud ahaan marka aad eegto shaqadaynu ka hadlaynay maxaan ku radaa qurba joogta shaqada xagga shaqada waxaan qabaa inay yihiin resource aynu u baahannahay haddayna inagu qaadan kara weynana mujtamacyo kala qaadanaya ninka dhakhtarka ama injineerka ama farsamo yaqaanka ama maxaan ku radaa lawyerka ama maxaan ku radaa meel dibadda wax ku bartay investmentka cid kala gelisay hadduu inoo soo noqdo isagoo investment la geliyey oo qaaliya buu inoo soo noqonayaa wax badanna maxaan ku radaa mujtamacu ku soo kordhinaya waa tahay xildhibaan aad baad mahadsan tahay markaaynu ka hadlayno dhanka shaqada oo kaleeto qurba joogta wadankii bay imanaysaa dhalinyartiina waxay leeyihiin qurba joogta wayna cidhiidhiyeen oo booskii aan anagu qaban lahayn bay qabanayaan miyana taasi dhiirigelin u noqonayn in dhalinyaradu wadanka joogtay ay iyagu qudhoodu door bidan inay wadanka ka tagaan marka opportunitiesku yar yihiin scarce yihiin maxaan ku rahdaa dadkuna baahiduna ay aad u badan tahay waa la istuhumayaa cidaba cid bay ku tumaysaa waxaan qabaa in problemka ugu weyn uu yahay systemka shaqa qorista systemka shaqa qoristu inuu ku dhisnaado noqdo system transparenta maxaan ku rahdaa merit ku dhisan aan ku dhisnayn gacan qabasho iyo maxaan ku rahdaa iyo wasto iyo waa reer hebel iyo kanaa hebela aanu ku dhisnayn ee loo tartamo mar haddii la tartamayo oo tartan xalaali uu jirana inanka qurba jooga iyo inanka maxaan ku rahdaa Somalilanderka halka jooga qurba jooga labaduba waa Somalilander xaq xuquuq siman bay leeyihiin hadday tartamaan oo uu tartankii ku helo waxay ka tarjumaysaa in advantage-ka meesha uu wax ku bartay aad baad mahadsan tahay xildhibaan uu ku soo laabanaya waxay la fadhiday Fadxiye Cabdilaahi oo iyadu kamid ah shaqaalaha IOM isla markaana iyadu ka shaqeysa in dadka qurba joogta la soo dejiyo dalka isla markaana aqoontooda laga faa'iideysto wala nooga waran بسم الله الرحمن الرحيم horta dhamaantiin baa waan idin salaamayaa marti sharafta meesha joogtay TV-ga Universal waan idinku mahadsantihiin runtii in barnaamij noocan oo kale aad soo bandhigtaan saddexdii sano ee ugu dambeeyay waxaan ka shaqeynayay xafiiska IOM-ta waxaana ka shaqeynayay mashruuca qaabilsan MIDA oo loo soo gaabiyay Migration for Development in Africa runtii mashruuca waxa dawlado kala duwan baa fangareynaysay dawladahaasina waxay ku fangareynaysay in ay dadkii aqoonyaanka ahaa ama expertka ahaa
hadday cilmi noqoto hadday experience noqoto hadday maxaan ku idhahdaa garaadba noqoto in wadanka dib loogu soo celiyo taasoo lagu saleeyay baahida wadanka ka taagan institution kasta oo wadanku leeyahay isagaa soo codsanaya qofka consultantka u baahan yahay annagoo IOM-na waxaa waajibkeenu yahay maadaama aan fundkii hayno inaan qofkaa loo baahan yahay ee institutionka ka shaqeyn lahaa oo allocate garayno qofka marka wadanka la keenayo waxaa lagu saleynayaa credentialkiisa aqoontiisa oo si fiican inta looga soo baaray lasoo hubsaday wadanka la keeno marka wadanka la keenana waxaa laga hubsanayaa oo kale in shaqadii ay institutionku u eegmaday inuu qabto anagoo IOM-na waxa ay waajibkeenu yahay inaan follow up garayno shaqadii loo eegmaday ma ka soo baxay qofkaasi hadda ma waa fadxii qurba joogta waa maxay shaqada qurba joogtu ay qabanayaan ee aanay qaban karin dadka qulqul joogta macnaha shaqada laga hadlayo walaala ma aha ma qaban karaan ujeedada dadkan loo keenayo waa consultant waa expert waxa uu ku soo gudbinayaa cilmiga uu halka ku soo bartay iyo aqoonta iyo experience ku halka ku soo bartay ayuu qofka dhalinyarta ee wadanka jooga ayuu ku gudbinayaa gaarsiinayaa isaguna wuu laaban hadduu doono wadankiisii buu dib ugu noqon hadduu doono wuu joogi laakiin ujeedada qofkan loo keenay waa institutionka inuu kor u soo kiciyo dadkii ama resource-kii wadanka markii horeba sii joogayna cilmiga intuu u gudbiyo gaarsiiyo aqoontii siiyo experience-kii siiyo inuu la soo kaco oo qofkan intuu ka faa'iideysto awood u helo inuu shaqadii sida ugu wanaagsaneed u qaban karayo iyo habkii internationalka iyo standardkii internationalka ee caalamka ka jiray inuu qofkaasi hawsha iyo shaqada loo eegmaday markii horeba isagoo loo kala inuu qaban karayo shaqada lagama qaadayo booskana lagama riixayo waxa kaliya loo jeego waa cilmi kordhis waa aqoon loo soo kordhiyay maadaama dhalinyartii wadanka joogay ama aqooyaankii wadanka joogay aan la wada gaarsiin karin in la wada dhoofiyo caalamka la geeyo exposure ay helaan anagu waxaan awood u yeelanay maanta ilaahay noo fududay inaan qofkii expertka kuu keeno oo wadanka kugu keeno oo aqoontii aad ka reebato adoo shaqadaadii maanta haysta positionkaagii haysta inaad u tartami karayso meelo kale caalamiya waana noo noqotay aad baad mahadsantahay waan kusoo noqon doonaa haddaad soo qaadato jaamacadaheena jaamacad quraata oo laba qof oo PhD haysta ay joogaan ma jirto Soomaaliland inta ogaalkayga waxa laga yaabaa imika dadaal bay ku jiraan jaamacaduhu laakiin mar baa jirtay inankii first degree shahaadada koowaad haystay oo macallinka ahaa jaamacadda magaciisuna professor ahaa waxa qofka soo raacay waxa qofka shahaadada labaad haysta dawaynu u baahanahay dadkeenu qurba joog ahaa ee takhasusaadka sameeyay ee dhakhaatiirta ah ee PhD-yada haysta inay Soomaaliland ku soo noqdaan waynu u baahanahay kuwa skilled-ka ee xirfadda leh ee Soomaaliland in la dhisi karo in wadal dib loo dhisay in si la soo celiyo mushkiladda in haysta Soomaaliland waxa weeye meel 3 milyan iyo bar qof ay joogaan oo shaqo la'aantu ay gaadhay halkii ugu sareysay in la yiraahdo dad baa la soo celinaya fursad ku heli karaya wadamada ka yimaadeen mushkilad kale haddana iyaduna jirta haddaad eegto daay mashruuca imika ay wado ee lagu codsado dadku ay business planska iyo intay mashaariicda ku qortaan ay ku ablagaraama World Bank Somaliland Business Fund la oran jiray haddaad eegto mashaariicda dadka qorta dhammaantood waa dad qurba jooga dhalinyaradii jaamacadda Hargeysa iyo Amuud ka baxday iyo Soolma dhammaantood grant-ka waxa laga yaabaa inaanu mid ka mid helin horna codka waa noo qaadno waxaanu nidhi dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaysa lacagtaa qayb ka mid ah ha loogu talagalo oo shuruudaha faraha badan ee loo taxay ee qofka qurba jooguni buuxin karayo ha laga saara meesha Soomaaliland waxaan isleeyahay waxa qaldani waxa weeye aqoontu way taalaa Soomaaliland managers uma baahna Soomaaliland sintiis bay u baahan yihiin dad aqoonta aan suuqa Soomaaliland oo limba loo baahan la soo celiyo laakiin haddii dadka soo noqonaya iyagoo maran ay soo noqdaan oo fursadahana ay Soomaaliland ka dhex abuurtaan taas waa Soomaaliland wax yeelaysa waxaan doonaynaa qofkayga waan jecelahay inuu soo noqdo isagoo fursad sida ama uu sida capitalkii iyo lacagtii uu shaqada ku abuuran lahaa shaqana ku abuuri lahaa ama sida aqoontii Soomaaliland waayahay waan ku soo noqonayaa waxaan siinayaa Jamaal isaga laftii Jamaal maxaa kaaga baxay waad maqlaysay dooda maxaa kaaga baxay dooda bismillaah horta runtii waa dood aad u qiimo badan oo ah had iyo jeer ale doodaha bulshooyinka had iyo jeer bulsho kasta adduunka jirto waxa jira doodo dhex yaala waana mid ka mid ah doodaha dhex yaala oo bulshooyinka adduunka marka laga hadlo xagga shaqada rag ka mid ah baa taabtay oo maxamed oo kale ay taabteen taariikhda waddankan haddii dib loogu noqdo waxaa jiray xilli dheer bay waddankan shaqo lahaa xilli dheerna dibadda inuu dhoofi jiray waxaa ka mid ah siimaanada oo kale siimaanadu muddo dheer bay siimaanku u ka shaqaysan jiray ingiriiska iyo dibadda waxaa yaran nasiib darre ahaan lahaa hadduu ingiriisku soo eri lahaa inagu soo eri lahaa odhan lahaa shaqaysanina
marka bulshooyinka inay isdhex galaan horta faa'iido u tahay yaan loo qaadan qurbajoog qolqoltoon isdhex galka bulshooyinka faa'iidooyin badan buu keenaa tusaale waxa Hargeysa u dhisantay maanta aad bay u dhisantay markii ay caasimad u noqotay Soomaaliland dadkan isu wada yimi marka horta isdhex galka bulshada la dhibsan taas waa qodobka labaad waxa la yiraahdo waxa inoogu xigay marka isaguna janaalayaasha Maxamed baa labadaba sheegay malaay dhalinyaro badan tiro 70aadkii iyo 80aadkii sidan oo kale u taagneedeen oo heeso badan ka soo baxeen maxaa la janaalaha iyo inuu hablay ka qaaday wax soo wax jiray waana waxyaabaha la friction ama isxoqa bulshadu inay magaranaysaa markay wax yar jiraan la isku eriyado wax yar inta badan waddankan resource ka ku yara waliga uu ku yara imika hadda waxa soo baxday iyadoo bulshadu korayso population ku korayo iyadoo dagaaladii ka bacdi dhalinyaro badan ay dhalatay dhalinyarada ay la kulmeen xilli waxbarashada waddankan hoos ay hooseyso maxaa la yiraahdaa shaqooyin kale ay hooseeyaan bulshaduna dhaqan ahaan isbedeshay oo dagaalku inuu waxay dhintay waxa ka daran dhaqan ahaan bal isir bedelay kuwaas marka waxay keenayaan inay isku dhacday badan xagga guurkan hadayno hal qodob baan ku dari lahaa maxaa la yiraahdaa xagga jaamacadaha qudhoodo ardayda jaamacadaha ka qalin jabisay horta waxa caana inaad jaamacad ka qalin jabisaa macnaheedu maaha 100% shaqo hesho laakiin way fududaysay shaqo hesho marka inuu qofku shaqo sameystaa maaha wax dhibkeeniya maaha ta kale waxa iyana jaamacadaha waddanka ku waajiba in la sameeyo waxbarasho ku habboon baahida dalka taala ma aynu dhinaca dhakhtar baynu dibadda uga baahan oo kaliya ha yimaado laakiin in lagu saleeyo waxbarashadeena inay baahideena aad baad mahadsan tahay waa hagaag xamda hadda waxa soo dhow waqtigii xagaaga qurbajoogtuna inta fara badan waxay imaadaan magaalooyinka ama dalkay inta imaadaan waqtiga waxa dhaca guur fara badan oo ama hablaha noqotaa maynamada oo waqtigaasi guursada waa tahay waa runta Cabdirashiidow inamadoo kaliya waddanka kama guursadaan waxa jira habla dibadaha uga yimaada si ay u guursadaan inamada waddanka jooga numco ayaa iyaduna barnaamijka inaga la qayb galaysa numco sidee baad u aragtaa markaad aragtid arrimaha guurka ee qurbajoogta iyo qolqoljoogta xamdi way jirtaa walaal sida Cabdiwahaab soo sheegay hadda xagaagii baa soo socda qolooyin badan baa u soo kaba xidhanaya inay habdho badan Hargeysa iyo gobolada Soomaaliland oo dhanba ka soo xirigeliyaan iyo inama badan baan qabaa anu qurbajoogta waan dhalisanahay waxaan leeyahay inanka Mareykan ka imanaya ama London ka imanaya ama Yurub ka imanaya ama Australia ka imanaya ee intuu soo qaato $3,000 ama $13,000 doonayo inuu ku damaashaado deegaanada uu ku noolaa inuu gabadh ka soo guursado waxa tusaaleysataa gabadha Hargeysa joogta ama inanka Boorama jooga ama inanka jooga Burco ama inanta Berbera joogta ama inanka Cargaaba jooga ama inanta Sool joogta mid kastaaba deegaanka uu joogo qof buu ku haystaa oo isleeyahay malaha tan baaba ku wanaagsan ama kan baa ku wanaagsan inaad nolosha la wadaagtay inta ku soo socota inanka nolosha khalkhalinaya uga wuxuu yahay caqabad ku soo biirtay bulshada aynu ku noolahay iyo xaaladda inta badan haynu aragno waa dhaliiltaasi ku soo biirtay qurbajoogta ku soo laabanaysa sidoo kale dhibaatooyinka inta badan ee horseedaan waxa kamid ah iyaguna dhaqanka inanka Mareykan deeku xagga guurkeenu ka hadla ha dhaqanka kale ay soo gali kartaa way inanka Mareykan ku koray isku dhaqan mani waxa laga yaabaa inuu ku arkay nolol high level oo nolosheedu wanaagsan tahay oo muddadii uu noolaa bimacna yeerisku noolaa baan ka waday lacag meesha u taalay oo wax marka intii uu guursanay haday high level ka kula noolaato maxaa dhacaya meena wax wanaagsan taas waa option u taala gabdhaha oo iyagaaba la isu yiraahdo mararka qaar caqabad bay ku tahay oo inanka Hargeysa jooga haday ka doorbita ka $15,000 ee ka imanaya Mareykan ama Australia ama Asia ama wadamada kale haday ka doorbita iyada option u taala walaw qabar ragay inay iga xaroon weyn inaga badan yihiin ma filayaa in iyagu naga shaxshax badan waayda hadii $1 lagugu soo shibay Cabdiwahaab waan ka dhaxgalay in telefoonka $10 habeen kasta loo soo diray gabadha kulli waa laga awood badanaya way nimco ku soo noqdo fu'aad laftiisu wuxuu kamid yahay qurbajoogta hadda dalka ku soo noqotay isagoo halka joogo fu'aad maxaa kaga baxay hadalka nimco dhanishayna qurbajoogta 6 sano ku maqnaa qurbaha ku noolaa inantana waxay ka dhawaajisay in laba qof oo isku magaalo ah oo sheeko u socotay inuu sabab u noqdo qofka qurbajoogga ah inuu kala dhantaalo sheekadii taasna ma aha mid lagu eedeyn karo dadka qurbajoogta ah waxaan aaminsanahay shakhsiyan in markay noqoto hablaha in ay iyagoo meelo kale iyo howlo kale iyo sheekooyin kale u socoto ay arkaan la kulmaan qof qurbajooga waddanka ku soo noqday inay iska ilaabantii ayadoon qasabna looga dhigin marka wax lagu eedeeyo dadka ama ragga qurbajoogga ah ama even dumarka qurbajoogga ah ma arko eedaha kale waxaa jira ah in ragga qurbajoogta markay waddanka yimaadaan ay hablaha u guursadaan labada bilood ee waddanka ay joogaan
inay gabadhaasi la noolaadaan kadibna ay noqdaan oo ay suba noqon waayaan qaarkood waxaan markhaati u ahaa usoo joogay sheekooyin badan oo ka dhacay Yurub rag badan oo garanayo shakhsiyan aan garanayo oo dumar soo guursaday Soomaaliya Somaliland meesha doonto intay Soomaali degan tahay markay dumarkaas yimaadeenna waxaa dhacday in isbedel weyn uu dumarkii ku yimid oo ay ka mid tahay waxaan la yiraahdo maxaa la yiraahdaa sheega xornimada dumarka ay leeyihiin ay qurbaha ku leeyihiin oo kale iyadoo ku xirnayd qof kale oo wadankii jooga oo ku soo dangaaraysay ku meelmaraysay inuu ninkaas uu kaxeeyo markay tagtana ay dalbanaysay in la furo mataqaana si ninkaas ay ugu dacwooto waxyaabo badan oo saas ah way jiraan maxamed cali bilaaqoy maxaa kaaga baxay hadalkaas horta mid baa jirto arrinku dhaqaalo ugu dambeynta ku warwareegaya markaad iminka taariikhda dib u raacdo xillibaa siimaanka qofka la yidhaha ama badmareenku waddanka haysan jiray because dee waxay ahayn dadkii dhoofay waxoogaa shilinka soo helay markii dambena janaala bedelay janaaluhu meeshu yimaado isagaa qabsan jiray oo dee lacag maaragta waxoogaa lacagaa jirtay qofka qurba jooga waxoogaa lacaga u haya marka muuqaalkana kolley dee waa wuxuu ka yimid dhul yara nadiif oo waxa laga yaabaa inuu ka qurux badan yahay inkastoo dadka waddanka joogaaba imika qurux badan yihiin marka taasi kolley attractionkii ama soo jiidashadii ama gabadha ahaada ama wiil ha ahaada uu kaga awood badnaanaya qofkii waddanka hore usoo joogay xataa qurba joog la-aanta marka dee waddanka gudihiisa la joogo sida loo kala lacag badan yaha kolley awooduna u kala badan tahay marka kolley awoodda sidaa awgeedna xanaaq waa ku badanayaa iyo in la dhaliilo qurba joog marka aqoon meelay noqonayn mar inankii joogay qurbaha ee halkan joogay ee qulqul joogta isagoo inantii la sheekaysanayo dee aan dhaqaalo buran haysan markuu ina qurba joog uu ka imaado qurbihii uu ka imaado halkan imaado miyaa uu ka qaaday marka dhibaato taasi hayn horta suuq waa badan yahay midhmidh hadday qaadaanna hablo badanna dhulkii waa joogaan oo waa mid kaloo maaragtay loo wareego marka in xabadda laga dul ooyo maahe waa horaa looga soconaya caqabad waa tahay laakiinse haddana waxaan kuleeyahay gabdho badan oo fiican oo taa hore laga qaaday ka qurux badan baa dhulka jooge dee calafkooda ha qaadeen adeed maasanta inankaasaan siin doonaa cabdiraxmaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xamse runtii waan idin salaamaya marti sharafta iyo waxaan u mahadnaqayaa bahda universal t v waxaan odhan kalaa runtii horta waxaan ugu filan riwaayaddii qootaqoot waa arkaysay riwaayadda qootaqoot waxay matelaysay nin qurbaha ka yimi waa matelaad horta runtii laakiin wax reality jiroon weeye nin qurbaha ka yimi markuu xaggaa yimi laga yaabo inaanu ahayn garaasha qof dee soo honorable ama qof sharaf ku leh agtiisa laakiin markuu halka yimi loo qaatay qof maadaama uu xoogaa shilmaada haysto qof sharaf leh oo hablihii wanaagsanaa macnaha kuwa lookalka eeganayeen inuu isaa ku guursaday macnaha waad arkaysa riwaayadda qoodqood haddana usoo jeesto qodobka labaad waxa weeye waxay kaxaynayaan dhallinyaradii rag iyo dumarba way kaxaynayaan waddan walibana wuxuu ku faanaa runtii waa dhallinyarada anagu waxaan fikirka ah in qurba joog la soo celiyaan taageersan laakiin dalka laga sii saaro hadda wax security oo aan u tahriibina ma jirto maadaama waddankeena nabad yahay dalkeena in lagu soo noqdaa muhiima marka xoogii rag iyo dumarba dhallinyarada in horta waddanka laga saaro marka laga yimaado qodobka hore asla marka hore ka hadal uu iga dhamaadee ee laga reebo shaqo la'aanta waddanka laga tahriibayo qodobka labaad oo waddanka ka socodsiinaya dadka waxa qodobka guurka marka waxa weeye in dadka waddanka loo daayo nin waliba halkiisa iimaansado dabcan dadkaas reer Soomaaliland waa qayb inaga mid ah marka ay Chinese-ka helayaan waa inay guurka uma diidanin laakiin Chinese-kooda waa inay qaataan laakiin waa inaanu ku soo duulin oo dadkii waddanka wada joogay ee intaas oo dhan soo wada sheegaysay inaan kala qaadin baan aaminsan xasan doosad xilliga halka ana waxay la tahay arrinta qurba joogga imanaya ee halkan usoo guur doonanaya inay tahay arrin qiimo leh waayo waxaa laga yaabaa qofkaas inuu soo danaynayo soo xiiseynayo dalkiisii xidhiidhku inuu kala fogaaday baa laga yaabaa xidhiidhkii dib usoo celinayo ama gabadh ha noqoto gabdho rag inamaday u badan yihiin inta badan gabdhuhu ma soo noqdaan way jiraan gabdho soo iyaguna guursada hadda yimaado halkan ka guursada arrinta guurku anigu waan dhiirigelinayaa runtii waxaan u dhiirigelinayaa waxay dadka dib ugu soo celinaysaa weliba dhallinyarada halkaa ku kortay dhaqankoodii iyo culturekoodii iyo dalkoodii ayuu xidhiidh cusub la yeelanayaa waxaa laga yaabaa haddii
australia jooga ama maraykan jooga ama meel kale joogo dad fara badan oo kala jaadaba ay dee kulmayaan oo iskuullada wada dhiganayaan oo shaqooyin wada gelayaan dee way u hawl yar tahay isaga gabadha halkaa ay wada joogaan inay si hawl yar isu guursadaan wayna jiraan qaar badan oo run ahaan sidaa ku tegey marka waxaan leeyahay hala soo dhaweeyo qurba joogana anugu waxaan leeyahay dalkan waa dalkoodii waxay usoo noqnoqonayaan waa xiiso iyo xidhiidh ay doonayaan inay bulshadoodii dib uga mid noqdaan ayaana ka bixin hala soo dhaweeya baan leeyahay marka inan qurba joogi uu halkan imaado oo inankii aan waxba haysan uu ka guursado miyaanay dhallinyarada badanaa tahriibta ee badaha iyo saxaraha marta waxay ka fikirayaan isna inuu sidaa inankaa berri shalay ka qaaday inuu noqdo oo intuu dalkii tago dib ugu soo noqdo oo isaguna halkan si kii hore loo ciseeyey horta waxaan qabaa soomaalidu wadigii maamaadii waa ku noqonayaa soomaalidu waxay odhan jirtay gabdhaha kuna waa haasaaweeyaa kuna waa guursadaa gabadh waliba intaasoo nin bay la sheekaysataa way qiyaasaysaa way eegaysaa midun bay guursanaysaa aqalka gabdhuhuna dee xabadda qurbajoogu dee inankaa qurbajooga ay waxay doontaa ku raacday ay raacday maaha gabdhuhu way badan yihiin waxaan qabaa guurkeennu inuu yar yahayba halkan laakiin guurkeenni inuu yaraaday ma arkaa gabdhuhu kuma yaraanayaan xabadda iyo labada inanka qurbajooga guursaday kuma yaraanayaan iyagana ha loo duceeyo ha la soo dhaweeyo maxaan ku dhahdaa dhallinyarada dalkoodii usoo guur doonanaya dadkoodii usoo doonanaya xildhibaan guurkan qaaliyoobaad imika ka hadlaysid miyaan la odhan karin sabab waxa u ah qurba joogta waddanka dib ugu soo laabanaysa oo inan weliba waxa ay ku tashanaysaa in ay guursato inan dhaqaale haysto dibadda ka imanaya iyadoo ka doorbidaysa kii waddanka jooga dhaqaalihiisa hooseeyey ma qabo horta qurba joog horta inay ka dhaqaale badan yihiin maxaan ku dhahdaa dadka halka jooga ma qabo waxaan qabaa dad badan oo halkan jooga oo shaqaystay ayaa ka dhaqaalo badan lacagta halkan lagu sameeyo laguma samayn karo maxaan ku dhahdaa ingiriiska sweden norway finland yurub anigu xaggaana waan joogi jiray way adag tahay lacagta halkan lagu sameeyo ama business ha laga sameeyo ama mashaariic kale ha laga sameeyo laga sameeyaa way adag tahay in xaggaa laga sameeyo cabdikariin ayaan siin doonaa bal siduu u arko doodan imika ku saabsan guurka walaahi runtii horta dee arrinta waa isxulasho oo laba qof baa dee isku qanacayo isjeclaanayo oo waa arrimo go-aanoo aan bulshada u oolinoo laba qof ka dhexeeya markaan waxaan qabaa su-aashaaba iska faduulaba in dadkaba la weydiiye maaha maya aniga qofka ii noqda ama anuu qofkan u noqdo ama australia ha ka timaado ama hargeysa ha joogto ama berbera ha ka timaade iscalmashadu waa labadeeda dhexdeeda moogtaha go-aankiina diiniyan xitaa waxaa la siiyey labada isguursanaya ayaa la siiyey ducadiina waxaa lagu xidhay waalidkii laakiin isdoorashada hore labada qof baa leh sidii mushkilad iyo dhibaato u noqotay xildhibaan reytaa dhameeyeyoo dee waddankeena guurkuu yaraaday guurka in la labalaabo ayaa la doonaya somalilan dadkeedu waa dad yar ama soomaaliba dad yar baynu nahay dhulka iyo dadku way kala weyn way kala badan yihiin markaa taran baynu u baahannahay markaan waxaan qabaa dee guur walbana dhibaato way jirtaa anu waxaan qabaa arrinta guurku mushkilad saa u weyn markay qurbajoog iyo qulquljoog noqoto ma aha wuxuun baan se ku dari lahaa labadii iscalmasho ee ummadda dhexdooda makhraati ka dhigta ee isguursada guurku waa mas-uuliyad aad u weyn inay samraan waa soco waa qofku marka labada qof iscalmadaan laakiin ka hor waxaa dhici kartaa intaanad adigu ina tays arag in inantu ay wada socdeen bacdeenna adigu si kadiisa ay kula kulantay oo adigu aad halkaasi aad kala jaan qaad inankii laftiisu maa niyad dee miyaani markaa eedda ma yeelanayo eedda inanka qurbajooguna ma yeelanayo markaa inanta laftigeeda khiyaamada samaysay maxaa eedada loo saari waaya ila inantina khiyaamay samayso ninkan qurqurjooggaana shalay iyadunbaa jacayla ku beerantay markii imika mid dibadda uu ka yimina iyadaa ka guurtay marka labadii qofba maxaa qurbajoog un loogula cararaya caqliga wanaagsan wuxuu dhigayaa arrintaasi waa arrin unu baahan xumaantu labada dhinacba way ka iman kartaa imise hablood baa tagoo la kaxeeyo dee inankii kaxeeye ku xumaaday iyaguba xaggaasun dee ka eega waayo fadxiyaasi horta waxaan ka ambaqaadayaa un arrintaa ugu dambeysay uu sheegay cabdikariin
oo arrintu ma aha walaalo sidaa uu ku idiin sheegay laba qof baa iscalmaday waa run waa laga yaabaa qofkan in sheeko hore u socotay laakiin dookhu waa ikhtiyaar waxa laga yaabaa qofkan inuu dookha hore ku qanci waayay waa sidaa uu sheegay xildhibaanku dee kuna uu ka hadlaysiya midna uu ka guursadaa marka qofkii hadduu xataa guurkaa hore ama go-aankii hore ama taladii hore uu ka soo guuray maaha maanta mid lagu eedeynayo leeyahay way qofkani hiyigiisa wuxuu la doonayaa nolol wanaagsan ma garatay waxa laga yaabaa ama inanku inuu doorto qof kale ama inantu inay qof kale doorato mid lagu eedeynayana maaha mid la oranayana maxaad u dooratay maaha mid la oranayana xataa way qualities bad qofka ku dooranaysaa hadday noqoto dhaqaalo hadday noqoto diin hadday noqoto akhlaaq hadday noqoto wada dhaqan waxa laga yaabaa qofka kale inuu xataa fikrado ka duwan ama soo jeedisyo ka duwan inuu ula imido nin iyo naagba uu ku qanacdo qofkaasi ku raaco laakiin fadxiya ka hor inta inankii hore sheekada la soo waday saac ama midada ugu dambeysay aad ka guuraysay xagga qurbaha guuraysay bal kaa laftiisa niyad jabiisa ka war dee horta inuu niyad jabo maaha marka ugu horeysa waxan waa calaf ilaahay baa kuu qoray qofka aad guursan doonto ama qofka aad nolosha la dhamaysan doonto ma garanaysaa qofkan inuu niyad jabana ma aha laakiin waa inuu halka ka ambaqaado isweydiiyo sababaha aniga lagaga dhaqaaqay maxaa ka mid ahaa maxaan maanta iska wanaajin karaya maxaan qaban karayaa qualitieskayga kordhin kara ama hagaajin kara maxaa ka mid noqon kara ma u dhigi karnaa iyadoon qurba joogu iman inantu inanka la sheekaysanaysa inan kaloo halka joogaa inay ka raacdo ama mid kale ka sii raacdo sababtoo ah waxbay baaraysaa rag bay ninkeedii bay ka dhex raadinaysaa intaasoo nin qof waliba waxa wax ku qiimeynaya isagay u taallaa hadduu dhaqaale ku qiimeynayo hadduu qurux ku qiimeynayo hadduu waxbarasho ku qiimeynayo hadduu diin ku qiimeynayo hadduu dadnimo iyo dabeecad iyo shaxshax iyo maxaa ku wanaag kale ku qiimeynayo qof walba isagaa qiimeyntiisa wataa laakiin maaha inanka qurba joogaahi ma jabinayo xidhiir laba qof ka dhexeeyey xidhiirkaasi halkan buu ka jabaa 10 jibaar ka badan ayuu jabaa oo wiilii gabadhu way socdo arkaysaa berito laba kala wiilkiina wax laga yaabaa inan kale la socdo inan kale la socoto waxa weeyaan waa natural oo wax dabiici ah waa tahay aad baad mahadsantahay Siciid ayaan siin doonaa oo ka mid ah isaguna qurba joogta sidee baad u aragtaa arrintan halkan lagu falanqeynayo oo laba qaybood loo kala baxay runtii horta waa dood aad iyo aad u macaan oo soo dhaweynayo in badan in laga doodo ay muhiim tahay laakiin doodan intii badnayd positive-keedii iyo waxyaabihii daliilihii yaraa waa la soo wada jeediyey waxaan qabaa fikirka ah inaysan ahayn issue laga doodo runtii sababta waa calaf waa laba qof oo is arkooday meeshu doona ha ka yimaado inankana ama inantan waddan kusoo noqonaya oo raadsanay gayaankii maajgarayn lahaa dee xuquuqdiisuu qaadanaya midna yaanaan iloobin oo mar walbaaba waa jiray in dabaqado loo kala baxsanaa hadda qurba joogta unbaa kusoo biirtay dabaqadii hore u jiray oo waxaa jirtay xilli welina way jirtaa maalqabeenka raadsan jiray ninka artistka ah ama educatedka ah uu inantiisa ama inankiisa la doonayay family educated ah qabiil baa annaga laftigeega jiro oo iska wareer kala isaguna mushkilad kala waxaasoo dhan hore u jiraan hadda waxaa laga yaabaa waxaa keliya la hadal hayaa inay tahay un qurba joog baa soo noqoto hablihii raacaysa laakiin bointiga aan doonaya inaan uga faaidaysto stagekan waxaa weeye dood ka muhiimsan baa jirta haddii hadda taa laga doodayo annagu qurba joog haddaan nahay dhallinyaradii hable iyo inamaba waxay aada u guursadaan dadaan soomaali ahayn taa marka waxay keentay inaan hadda ku dhiirigelinay inay dhallinyaradii waddanka u noqdaan gayaankoodii raadsadaan reintegration sameeyaan waddankoodii si ay accessna ugu yeeshaan wax badanna ay ula qabsadaan ayagoo dee soo celinaya laakiin Siciid waxaa jirta taa maxaa ka leedihiin marka taa laftigeeda u baahan moogtahay issue muhiim oo in laga doodaa gudoomiye sharmaarkan siinaya ayuu wax kale bismillaahir rahmaanir rahiim horta sidaan ognahay xog walbo lagu qiyaas qaatay 10kii sano ama dhowr 10kii sano mar bay dhacdaa oo ayna qiyaas qaadashada ka baxda hadda markaynu isbarbar dhigayno janaarayaashii iyo siimaanadii iyo qurba jooga hadda jooga xogaha lagu qiimay aad bay kala duwan tahay ama wadciga nololeed imka lagu kala jiraa hadda haddaan afkan dambe ku hadlo waxa jira social media wixiiba ka duwan oo 2004 ilaa 2005 wixii ka dambeeyay la sameeyay Facebook ha noqdo Twitter ha noqdo arrimo kale ha noqdo oo keenayo qofku inaana cirka soo dhacbaan una iman qofka isagoo halkan joogo marka horeba doorashadiisa ama dibadda ha ka doorto ama dalka ha ka doorto klaaska nooca dadka uu doonayo hadduu sii xushaa marka weegiisa iimaanku soo dhici jiray xaafadda intuu iska imaado loo oran jiray qof meeshan joogay nin baa qurbaha ka yimid siiya hadda way ka duwanto wiilkay gabadho marka horeba dooqoog iyagu waxay ku sii salayaan bahawadaas laga wada hadlay imko cidba isma soo dulacday imka xogtaasi waxa la 10kii sano mar bay isbedeshaa sida ummaddu u noosho taa lafteeda hawada waxa jirta khiyaamo hoosta kaga jirta taa lafteeda oo
aaladan laga wada xidhay ama facebook waxay doontaa noqoto ayuu inanku ama gabadhu wuxuu usoo dhigayaa sawir 15 jir isaguna waaba 70 weeyaan arrintaas hadhow markay kulmaan miyaan caqabad hayn oo ilaa hadhow way kala tagayaan boo markuu ku arko qof 70 jir oo ilaa 15 bilo sheegaysan jiray marka hore way jirtaa horta runtii isbedelka hawada ku yimaado qofka bilaadanka wax laga yaabaa inaad qiibayntii hore marka hore hawada ka taqaanay imka kala duwanaato wuxuu meesha ku jiro inamada marka la leeyahay inta leeyimada baa gabadh laga qaado oo cadhado uu tahriibay waxaan isla tahriibka ujeedadii loo tahriibay baynu yaraynay waana yartay wiilimka gabadh darteed iyo gabadh baa laga qaaday badda isugu gurayay dhibaatooyinka waaweyn dadka wax jira dalka ka saara iyo caqabado ka waaweyn waa ku cay hadii la yiraahdo gabadh laga qaaday buu dalka uga tagay waxaan isla anigoo runtii qiimahooga aan yaraynayn gabdhuhu mar walba ay qiimo leeyihiin haddana waqti lacag badan iyo hanti badan iyo mushkilo badan gabadha laga qaadi jiray oo jirto hadda uu helaya hadduu u talagalay inuu guursado guur xalaal oo wanaagsan oo u socdo runtii qurba joogna ka qaadmay cidna ka qaadamaysa waxa ku xiran tahay raganimadiisa iyo hadalkiisa aad baan maasanta Mustafa ayaan siinaya qurba joogta waxaanu ka hadlaynaa qurba joogta qasaarahooda iyo faa'iidadooda dalka midkee u leeyihiin markay saa oo tahay waxay ahayd inaan tusaalahan kale u kala qaadno dhaqaale ahaan dhinac u qaadno siyaas ahaan ma faa'iido u leeyihiin mise khasaare dhaqan ahaan oo kan imka ka hadlayna ah oo guurku ka mid yahay ma faa'iido u leeyahay mise khasaaro u yahay imka mawduucaas marka imka la joogo aan dul imaade waxa weeyaan dhaqanku soo galay haayo mushkilad badan horta qurba joogta meeday waa in ayaga isu kayadaysaan oo doodno idinku noo qeybiya marka waayahay horta mushkiladda ugu weyn ee nagu sameeyeen waxa weeye qurba joogtu problemka aan taabta bartiisa ugu tagay waxay nagu qaaligareeyeen guurkii waxaa noo raacay wadankii oo shaqo fiican lahayn sida gabdhahaas ka hadlayeen waayahay haddii waaye guurka aad nagu qaaligaraysay ama adigu xalaal ku soo hel ama xaaraan ku soo hel ama de qofku soo doonaba ha ku soo hel qurbaha sheekooyin badan baa laga keenaa laakiin horta koo guurkii bay nagu qaaligareeyeen koo muhiim maaha inaan taabto laakiin shukaansi aan sharciga waafaqsanayn tusaale ahaan oo kale de annagu dhukashadu waa naga xaaraan tusaale ahaan oo kale barteeda aan ugu tago annagoo gabadha marka xilli waagii hore la shukaansanayay Soomaalida inankuna geed buu dhinaca shisho ka soo istaagi jiray inantuna dhinaca ka soo istaagi jirtay marka waxa weeye qaabkaas iyo ha shukaansiga ya waqtigaas waqti hore waqtiga ayaa bedelay qurba joogta bedeshadii dhaqan cusub loo leeyahay okay Mustafa u jawaabaya insha Allah horta 27 sano anigu wadanka maqnaa Helsinki-aan deganaa dhaqaalaha horta tiisu waa gooni oo hore loo sheegay halkan waa joogan reach dad maalqabeeno waa israadsan karaan waana dhacdaa ayaguna dhaqaale ma wada haystaan qurba joogta taa horta waana mid la fahmay hadda runtii oo baryahan dambe hablaha laftigooda way fahmeen in qurba joogtoo dhan aysan lacag aad u tiro badan wadan ay tahay un xoogaa short term assignment ay u soo baxaan laakiin tan muhiimka waxay tahay dhaqanka uu walaalkay Mustafa ka dhawaajiyay anigu taa waxaan u arkaa vice versa inay tahay oo dhaqan markii laga hadlayo Soomaalidii hore haday tahay de waa gooni oo hadda gooy shaalkii ma xirin geed la hoos taagaana ma jiro Mustafa wuxuu uga jeeday dhaqanka soo biiray qurba joogtu wataan isagu wuxuu soo qaaday actionskay sameynayaan labada shakhsi ama shakhsigu mid uu ka yimaado laakiin badaan macaanaynaya diyaaradaha dusha joogan kugu sameynaya guri 4 star maxaa hotel 5 star aan kuugu dhisay aan kuugu tumaya dharka ugu wanaagsan baan kuugu xirayaa waxaynu ku soo tababaxaynaa maxaa la dhahaa toddobaadka waxaynu ku soo qaadanaa Nairobi Addis Ababa wadamada adigu magaalooyinka ugu qurux badan dhaqankaasi inanka Hargeysa jooga Cabdi Haweyni sognahayna waliba suxufiyiin baynu nahay ma karo waxa laga yaabaa inuu gabigiisaba ku shaqeeyo hadduu ugu bato $200 noloshiisa kaliya ay ku sigibtirastay marka qurba joogtiina xanaaqine dhaqanku tiyoon maahine هيا عبد الرحمن بايرسن ku soo noqonaya faad bismillah waxaan ka dhawaajinayaa walaalkay wuxuu sheegay in qurba joogtu ay faa'iido leeyihiin had faa'iido darrada guurka ay u keeneen qurba joogtu wali cid u keentay ma jirto sanadkan sababtoo ah horta midaan ku iloowno shimbirkiisu la duulaa oo wixii ilaahay isku qoray way isku qoreen laakiin se kow maxay keeneen waxay keeneen gurigii kiradiisii waxa laga dayanay qurba joog habkii loo guursanay waxa laga dayanay qurba joog habkii loo dhaqmay waxa laga dayanay imika inanta waxaad arkaysaa dhisaynka uu labisanayso iyo say isku loxlayso waxaad ka arkaysaa in habkii qurba joog ay tahay inankii halkan joogay wuxuu isku dayaa inankii qurba joog joogay inuu sidiisii u labisto sidiisii u dhaqmo uu sidiisii u matalo sidoo ahaa marka qurba joog maxay keeneen faa'iido darray noo keeneen tan lacagta laga bixinayo ama gabaati ha noqoto ama yarada ha noqoto ama guur loo dhigay xaflad loo dhigay ha noqoto qof walba iyo kartidiisa Allah subhanahu wa ta'ala ayaa dadka wax siiya oo arsaaqda bixiya
haye dhegeyso dee horta dhegeyso siduu Saciid sheegay wuxuu ka dhawaajiyay isna dhowr goor in weligeedba ilaa iminkadan aan joogno ilaa iyo intaanan dhalan ka hor in dadku bini'aadamka wadan walba la joogo dabaqad ingiriiska Allah ka dhigo Finland Allah ka dhigo Mareykan Allah ka dhigo in loo kala noolaa weligeed xildhibaankana wuxuu asna ka dhawaajiyay in fikradda ah dadka qurba joogta ah loo haysto inay lacag leeyihiin aanaysan lacag haysan badankooda marka taasna waa in wax u baahan mataqaanaa la isu sheego marka ma arko wax ay qurba joogga ay kiciyeen sicir barar kiciyeen aniga masalan 1 second aniga masalan waxa jirta markaan magaalada galanoon suurkaas xirnayn suurka suudiyan u soo xirtay laakiin anoo shaar caadi sita oo sandal sita oo surwaalkii ingiriiska aan ka soo qaatay sita ayaan markaan bacalaha tago waxaad u malaysaa inuu shaarkayga sheegay inaan ingiriiska imid markaan weydiiyo waa maxay price-kan waxaan la iibinayo ama kabaha noqdaan ama cuntaha noqoto wixii doonaa noqoto 3 jibaar dhegeysadee 3 jibaar dhibaatooyinkaasaan haysta aniga naftigeena 3 jibaar cashaan aragtidaada waxay tahay inaad qurba joog tahay samada garan marka ma arko aniga wax ninka Soomaaliyeed ee maanta wadankiisa ku soo noqda meesha doonaa ka yimaadee oo soo guurtaga intuu guursan lahaa Jamaican iyo naag cad iyo naag Carabiyad ah oo u soo noqdo gabar walaashiisa Soomaaliyeed wax ka wanaagsan aniga ma arko anigu waxaan hablaa qurba joogta ma garatay marka dhaqan xumadana lagu eedeynay actually TV-yadan maanta hadda daawataan filin Hindi iyo filin Turki iyo balaayo dhan baa idin furan internet baa idin furan annagu waxba ba idin keenin oo dhaqan xumo idin keenin imka tiba inamada magaalada iyo surwaalada ku dhagan markaan arko inamada qurbadu sabab uma libistaan xabashida iyo meelahaas ka keenteen bay la tahay iyo filin Hindi ma ay runtii isu sheegno dhaqan xumaa keenteen kana keenteen maaragtay annagii bay makana laga dhigo ummad idinku soo duugshay xumaan economically marka la eego dhaqaale ahaan dalkan wuxuu ku dhisan yahay waa qurba joogta isu sheegno waxa businessa maanta dawladdu waxa ma tartay shaqana male $100 maanta wax cidna uma taro waxaynu ka hadlaynay in shaqo la'aantan aynu ka hadlaynaa horta Hargeysa baynu ka hadlaynaa markaynu ka hadlayno kama hadlayno Burciyo baadiyaha iyo meelaha kaleeto shaqaduna maaha shaqo xafiisu halkii dalkan ka khaldayay maaha qurba joog wuxuu ka khaldayay education systemka dalkan qof walba waxaan jirin iyo shaqo aan jirin baa hamiga loo gelinaya niyada loo gelinaya dalkeenu dhaqaalihiin wuxuu ku dhisay nomadic community iyo dadkan maaragtay arigayga reer miyiga laakiin qof maanta ummadii dhan waxa la rabaa inay xafiis ka shaqeeyaan oo la xafiis laga soo dulboodo laakiin dhaqaalihii dalkee runta ahaa wuxuu ku xidhay nomadic community-ga ama badaheena ama waxyaabaha laborka ee loo baahan yahay waxaan jirin oo mismatch ba ku dhacay meeshii education aan jirin iyo maaragtay hamig weyn oo meeshii aan jirin oo reality ahayn ba dadkii lagu abuuray laakiin aan runta isu sheegno walaal uma hadnaqa nooma hadnaqa waan idin nimi waan idin ka guursanay dhaqaalaan idin keenay waan baan idin keenay horta waxa jira waxyaalo badan oo dadku kala maqmaqleenuune haddaad qofka tidhaahdo bal caddee ay ku adkaanayso qurba jooga dhaqameynoo keenay dhaqanka qurbaha iyo imka dhaqanka halkan almost waa isku mid waxay ku kala duwan yihiin ma jirto haddaad imka qof Facebook ka wada hadashaan oo uu ku sheegin halka uu joogo iyo sida loo wada hadlayo sawirada la isweydaarsanayo waxa laga wada raayay Barcelona iyo Messi gabadha uu qaba magaceeda ka halkan jooga iyo ka Spain jooga isku siba u yaqaanaan marka waxaan ka hadlayaa horta sidan waynu ku miisaynaa oo dambiga mooyaane isku siba lagu yidhi second qurba jooga waxa ku yar dadka low class-ka ah ee xagga dhaqaalaha marka haddaad ya way ku yar yihiin oo dad yara middle class iyo dad inta dhexe u badan yihiin xagga dhaqaalaha xagga dhaqanka marka aad run u noqoto de qolo kasta way leedahay horta qolo dhaqan xun oo xoogaa xadka ka yara baxday laakiin marka inta average ka weegto wali anigu ma arag guri caadi oo qurbaha oo ilmaha yar kelmadda wa ee cayda isticmaalayo waligay ma arag mana maqal markuu qof isticmaalana dhagahay wada qabsadaan carruurtu halkan waa iska caadi ma xaafada dhanka doona loo ridayaa wadaas la hayaa moogtay ama wadaas carruurta yaryar qurbuus wax ku oranayaan f word buu igu yiri hebel marka xaqan dhaqanka halkan waa la qarsanayaa uun xaggaasna waxoogaa waa daahir yaa shamis laakiinse waa isku mid qurba joogase in eeda la wada saaro anigu ma qabo بسم الله هو تهداني مك دودا سي دبا سocdo markan ka nimaadna tii shaqada yani ma aaminsani inuu qurba joog weyn dhibaato ku keenay xagga guurka لأن قفكو يعني قفكو جعل يسوق أيو قرصنيا لأن إنك قرب شو جاي مدي إن أنت دلك شوكت ما نخسبين oday kala daadanaya inoo keenaya
dhaqanadan aad ka hadlayso walaal waxa jira oo taayeen waxaad ka hadashay dhaqano xun bay kaadaan jiilba oo tala kacaya tan aad ka hadlayso in geeda la soo daba istaagi jiray waynu ka soo gudubnay laana imika waxa la mariyo dunida socialization media ba wax walba laga arkay musalay daawadaan wax kasta la daawadaan youtube kiba wax kasta socialization bulshadii ilbaxnimadii waxay ka timid bulshadii waxa ilbaxnimadu markaa ma in dhaqankii iyo islaamka la dooriyaa iyo dhaqankii Soomaalida walaal way dhigayso hadda ma hayno qurba joogta eeda saar laana iyagu imiga youtube kiba hadan u baahanay maanta inaan 10 ka faa'iideysto waan ka faa'iideysanaya hadan xumaan ugu tala gal waan ka faa'iideysanaya maaha un iyaga in eeda la saaro oo la yiraahdo wax kasta iyaga xumay ta shaqada ha ama ku dhaliilay laakiin tan guurka kuma dhaliili karo laana qofkii imiga qofkaan rabo hooyadayni ogeyn aabahayni ogeyn ba hadan cadaan doonayaan kala sheekaysan karaa barta Facebook hadan wiil Soomaali doonayaan kala sheekaysan karaa hadan doonayaan waxaan doonay inaan xumaan ka barto waxay ugu filan internetkii ayuu qurba joog kala raadin way qoladina dumarka tusanaha qurbaha ka yimi wiilasha aad gursataan inaad humiliation iyo bahdilaad ku sameeysan maxad ka leedahay anu qurba kama imana dalkan joogo kugula dhasho inta ku leekaaday dalkaad joogtay hadana waan aaminsan in inay dhalinta qurba joogti aan wax dhibaato ku lahayn xagga guurka qurba joog halkeed kaga duwanta eeg markan eeg dhaqanka Soomaalida waan ka hadalnaa reer miyiga iyo geedkii loo istaagnaayo awrkiyo imika adigu qurba joog meel aad uga duwan tahay dhaqankaaga wanaagaaga quruxdaada hadalkaaga sid iskaafki baad seetaan uma gaadhin iskaafkaaga aqoonyahan maxamed cali qurba joog waad ku miisaysaa haddii adiga iyo qof qurba joog la iskiin ag joojiyo ood hadashaan imika maanta qurba joog baan ku haystay kowrade iyo sanaad u doodaysay lagu mooday in uga soo baxda kulliyad marka qurba joog ma ku miisayda dhaqanka laga hadlayo waa kanad ku hadlayso waad baahsantahay maxamed calaw aqoonyahan maxamed calaw horta anoo ka faa'iideysanaya channel kan mar dhaweed waxa tiri low class-ka dadka qurbaha jooga ku yaal taas waan ka diiday dadka boqolkiiba sugada dhaqaalaha ku yaal halkan dadku ninka halkan ka dhoofeen marka hore dabaqadiisu yara hooseysay waxoogaa inta badan qof ka dhacay ma sheegin nolosha laakiin inta yara badan waxoogaa 200 iyo 300 dollar waa la iska yara wada helaabaan ka wada ra'yi ahaan kulama qabo waxaan tusaalahaan ma tagtay qurbaa maya waxaan hayaa daato tamay hadda anaga joogna weydii anaga ka shaqeynaa joognaynaa iga jawaab dadku maxay ka shaqeeyaan markay qurbaha tagaan waxbay masaxaan boqolkiiba 70 Soomaalida particularly waxbay masaxaan midna waa washman midna meel busoo kala garan waa tira fara ku tiris barfse aqoonyahan runta markaynu sheegno waa tagsiilayaan kuwa ugu ladan markay halka yimaadaan ba suuq qurux badan inta naloo soo xidho ayaa muddada yar nasashada waa daad xilbaad soobayde waxaan kala weydiinaya su'aashan u cilqabay waxay ahayd rag fara badan oo Soomaaliya ayaa intay hablo Soomaaliyeed oo sharaf iyo sumcad iyo karaamo leh oo reer maaragtay boqorad u ah intay guursadaan ayay iskaga tagaan kulkaas ay muddo dheer soo noqon waayaan maxaa kulkaas waxay luminaysaa intaas qeyrkeed waxay dhalayaan 10 iyaduna hal bay ilaa xilliga maxaad hablaha Soomaaliyeed waqtiga ugu lumisa ma filayo in 1% inay gaarayaan inamada intii halkan yimaadeen guursaday gabadh ee ka tageen ku soo noqon haddaanay jirin dee wax personal relationship kooda xumeeyey oo mataqaanaa halkanna way dhacdaa oo furriinku maalin kasta wuu dhacaa kuwii halkan isku guursaday way isfuraan furriinku wuu badan yahay raydku aad buu u sarreeyaa labada kala maqanina way isfuri karaan micnaheedu maaha because waa qurba joog waa xiriirkii labada qof oo burburay sababo kala duwan buuna u burburi karaa ta labaad qofku qof waliba values bilaya anigu valueska hadda aad express garan magacaaga muxuu ahaa Mustafa valueska dee kulama wada share garan dadku kulama wada share garanayaan waa your own personal values ma qabo anigu waxaan qabaa dhalinyarada anigu caruurteedu waxay joogtaa qurbahay joogtaa waa caruur si flaashira xildhibaanna waanahay waa caruur si flaashira wax bartay akhlaaq leh maxaan ku dhahdaa inankaygu masaajidka kama baxo waana shaqaystaa waana highly educated person waana shaqaystaa caruurta waa jirtaa caruur halkan xaggaa ku luntay caruur halkan ku luntayna way jirtaa
mujtamac walba wuu leeyahay maxaan ku dhahdaa problemskiisa iyo dhibaatooyinkiisa waa tahay xildhibaan waxaan qabaa in ay tahay judgmental ay iska tahay dee inaad tidhaahdo ciddaasaa caynkaasa waa personal opinionkaaga waayo xildhibaan aad baad mahadsan tahay waan kuu soo noqonaya xildhibaan waxaan siin doonaa cabdixakiin waa wariye madax bannaan qurba joogna ah xoogaal waxaad u tahay cabdixakiin qaabka ay u nool yihiin qurba joogta markaan qurba joog ka hadlayno kaliya Soomaalida oo kaliya qurba joog maaha waxaa jirta wadamo kale oo caalamka ah oo iyaguba dadkoodii ay wadamo kale tageen bal dadkaasi siday u nool yihiin inaad nooga warbixiso dadka cusuriyiinta had iyo jeer waxay isticmaalaan madowgii baa naga qaaday shaqadii dalkii way la wareegeen eeshiyaanka way nagu soo bateen dumarkii bay naga guursadeen mixed race ma doonayno waxyaabahaas ay dhahdeen inaynu ugu nimaadno dalkeeni taasoo kale horta waa yaandar caruur fara badan oo sacrifice u samaynaysa amba wax badan u tari lahayd ayaa jirta markaan su-aashaad weydiisaan dib ugu noqdo markaan su-aashaad weydiisay dib ugu noqdo adduunyada intay jirtay dadka qaxoontigii amba immigrantka amba refugeegii waxaa ku yimaada xaalad siyaasadeed mid dhaqaale mid bulsho dee xaalado kala duwan bay ka mid iminka maraykanka oo kale 1880 ilaa 1925 waxaa tegay 25 milyan 25 milyan waa dadka qaabeeyey noloshooda maantana ay noqday wadanka ugu horumarsan caalamka tusaale haddaynu dalkeena dib ugu soo noqono dadka dibadda ka yimid maxay raad ku leeyihiin jaamacadaha sheegayaan golis siciid qurbuhu ka yimid jaamacadda hargeysa qurba joog baa sameeyey jaamacadda barco qurba joog baa sameeyey shirkadaha waaweyn ee Soomaaliland ka jira Talasom ninka liid garay Cabdikariim Maxamed qurba joog baa dahabshiil Cabdirashiid Maxamed waxa nin qurba jooga labada hodheelada ugu waaweyn Master iyo Mansour labaduba waxay qurbaha ka yimaadeen wax fara badan ayay bulshadeena ku soo kordhiyeen waxa laga yaabaa khaladaad inuu jiro laakiin inaynu dadkii fogeyno intaynu soo dhaweyn lahayn waa tahay cabdikariin ayaan siin doonaa anu walaalkii waxaan dadka in maaha dadka reer Somaliland ee arrimahan de sida iyaga ay wax u arkayaan uga hadlaya laga dhigo dad cunsuriyiina maaha cabdikariin maxamediid ina uu siciid qadar ambassador cabdiqaadir mansuur iyo towsaniska kale ee wanaag leeymi waa kuwaanu ka hadlaynay waxay la yimaadeen iyagoo sida waxay fursad ku abuureen laakiin xaqiiqdana de tawaan qarsanahay waana mahadsan yihiin xaqiiqdu waxa weeye qaar kuwa ka tira badan oo la yimi maskax maran iyo calool maran iyo jeeb maran dadkan masaakiinta xadaya oo guryo Yurub iyo Mareykan ka iibsanayaan way jiraan kuwaanu ka soo horjeedna waa kuwa wanaag la yimi fursadaha la yimi maaha kuwa waxaan leenahay qaranka Soomaaliland ha abaal mariyo oo bila sharafi ha siiyo waxaa kaloo leenahay laakiin bulshada waxaa kaloo leenahay dadkaygii baa tiin waa noo dhoofteen wadamada tagteen fursadaha jira Somaliland caruurtana dawaqisayna si wadaan soo wadaan sii rar oo soo rar adigu kaale oo tag akharad baabiinaysa wadanka joogto ayaad nolol ka samayn kartaa nolosha halka ka samaysaad Somaliland wax ku tari kartaa waxaan isleeyahay anigu labada arrimood ee u baahan in la iswaafajiyo waxa weeyaan dalkani xilligan uu imika ku jiro 25 sanadood bila aqoonsi wadankan wuxuu u baahan yahay dadkii ku noolaa in nolol loo sameeyo in shaqo loo sameeyo aqoonta qaldantay ee suuqa Soomaaliland u baahnayn in la saxay u baahan tahay xitaa dawladdii noo saxi lahayd cidda wareerisay ee dawakhisay ee political corruption ku samaysay diaspora badan laakiin qurba joog qiimo leh oo sharaf leh oo de wanaagsan oo Universal TV ga de mulkiilaha leh de farxaanka Home Cable TV ga leh de dad qiimo leh oo sharaf leh baa jira waanu aqoonsanay waanu sharafnaa kuwa qaarna dhibiba qaarna dhiboona kadeeday baa jire de kuwaana laga hadlayo hadalka cabdikariim iyo hadalka Mustafa iyo hadalka Nimcaba dhowr arrimood baa iga baxay waa saddex arrimood arrinta koowaad waxaan u arkaa runtii in la iska indhaxirayo xaaladda xaadarka ee taagan maanta waxa laga hadlayaa in qurba joogtu dhaqaalaha ama dhaqaalihii guurka ay kor u kiciyeen
waxaanay arki waayeen dad badan oo loo kala oo waddanka u dhashay meelna u dhaafin oo maxaan ku idhaahdaa dee ka dhigay meherka lacag fara badan oo 300 gram oo dahab Miyay ku dayeen qurbajoogta markaa? kuma dayanayana waxa laga yaabaa qurbajoogta maanta dad badan oo ka mid ah maanta masaajidada dhexdooda meherku ka dhacaa waxa laga yaabaa meherka inantu inuu musxaf ama kitaab qur'aan uu noqdo ama wixii ugu yaraa maanta inan laga bixin lahaa maanta laga bixiyo ama inantuba ay ka saamaxday tirado kaamaba doonaya wala cafi baad iga tahay maxaan ku idhaahdaa even xataa yaradka iyaga baatiga ee dadka la siin lahaana uu yar yahay marka taaya inaan ku miqyaas qaadanin oo arrin ka duwan arrinta labaad ee inantaa nimcay kaga dhawaajisay beena ku soo xirgali runna kula dhaqan waa dhaqan Soomaaliyeed qofka iimaan la'aantu ama iimaanku ku yar yahay inanta been uu u sheegayaa hadduu yahay qolqoljoog iyo hadduu yahay qurbajoogba uu u sheegayaa awalba waa la oran jiray maxaan ku idhaahdaa arooskaaga waxaan kaaga dhigayaa daalo isagoo hargeysa joogoon awoodba u lahayn ama isagoo dukaan yar ka shaqeeya u sheeganayo oranaya dukaanka anaa iskale way ka dhacday maanta hargeysa waana la ogyahay taa arrinta saddexaad ee maanta meesha taala waxaa laga yaabaa 10 sano ka hor waddanka inay ka dhici jirtay in inanta qofka masalan qurbaha ka imaado inuu khiyaameyn karayo oo isaga oo aan waxba ka ahayn Yurub lacagta yar uu soo qaato inuu been ugu sheego laakiin maanta thank you to the network iyo social media iyo dadka badan ee maxaa ku yiraahdaa qurbaha jooga in la ogaan karayo qofka historygiisa iyo backgroundkiisa intaanay gabadhaasi ku dhicin ama intaan inankaasi talaabada qaadin wuxuu ogaan karayaa qofka akhlaaqdiisa wuxuu ogaan karayaa qofka dhaqaalihiisa wuxuu ogaan karayaa qofka historygiisa marka waxaan jeclaan lahaa intayada waddanka jooga wala aqligeenu ma yara aqli wanaagsanna waa leenahay maskax wanaagsanna waa leenahay maanta way yar tahay walaala inta la siri karayo ama mustaqbalkooda lagu ciyaari karayo waana yar tahay runtii bay dhici jirtay 10 sano ka hor in laga yaabo inta loo imaado la guursado laga tago laakiin haddana waa la soo heli jiray oo rag halka jooga soo heli jiray ninkaasoo warqada waa lagu soo qaadayay waxa kale xildhibaanka gacanta taagaya xabsada waa injina xabsada ku بسم الله الرحمن الرحيم أنا waxaan qabaa roolka markii hore laga hadlayay roolka qolbajooga guud ahaan roolka qolbajooga inaynu nahnaa bay ahayd ma ahayn inaynu nahnaa roolka qolbajooga negative iyo positive uu noqon karaa noqotay in because shaqadaynu meel yabanu ka bilowno hoose anigu waxaan qabaa Somaliland waxay ku dhisantay effortka iyo dadaalka iyo xamaasadda iyo waxaan ku leeyahay qabadka qolbajooga ayay ku dhisantay marka laga yimaado ariga aynu dhoofino hard currency ama lacagta kale ee soo gashay ee labaad kaalinta labaad soo gashay waxa weeye waa remittance-ka waa remittance-ku waa waxa dhaqaalaheenu ku socdo ama qof walba dee reerkiisii u soo dirayo reerkiisii iyo familigiisii cayladiisiiba u soo diraya laakiin cayladiisii lacagtii u soo diray dee dalkay gelinaysaa oo wax kaga iibsanaysaa oo businesska ku socda oo dhaqaaliba ku koraya marka oo dollarkii yimiba wax lagu soo iibsanaya ganacsadeen wax ku soo iibsanaysaa roolka labaad ee ay ciyaareen waxa weeyaan runtii inaa u fiirsateen iyo in kale mooyaane iminka inta taariibaysa ee dhoofaysa iyo inta soo imanaysa ee dalka soo degaysa ee business iyo ideas iyo wax la imanaysa way isku dhow yihiin inta kalena way soo socotaa baan qabaa haddii aan halkan maxaa aanay kala kulmin waan ogahay dhalinyaro badan oo afkaaro iyo maxaan ku dhahay initiatives wata in halkan yimaadeen oo dabeedna frustrated noqdeen oo dib ula noqdeen waxaa loo baahan yahay in maaha qurbajoogeenna qura cid kasta oo meel kasta ka timaada oo dalkeena soo degaysa oo business gelaysa ama maxaan ku rahdaa xirfada ku soo kordhinaysa ama waxay nagu soo kordhinaysaa inaynu soo dhaweyno dunidu waxa ay ku horumartay oo halkaa ku gaadhay waxa weeyaan waa xadaarado iyo dhaqamo iyo xirfado iyo aqoon la kala qaatay oo la shargareeyay oo la wadaagay waynu u baahannahay qurbajoog marka wax kaleba laga yimaado dhaqan wanaagsan oo positive oo maxaan ku rahdaa oo laga yaabo dalkeena burburay dagaalkii saameeyay 20 sanadood maxaan ku rahdaa marka duruufaha dhaqaale adkaadaan dhaqanku burburaa oo valuesku dadku way yaraadaan in qabaa inay wax positive oo xagga dhaqanka u soo korinayaan yaan la odhanin qof iyo laba iyo saddex iyo afar mujtamacu horta waa mujtamac ka xaggaa jooga iyo ka xagga jooga waa jiraan dad nolosha ka dhacay waa jiraan dad halkan nolosha ka dhacay sideed halkan u badan tahay
maxaan ku rahdaa because populationka badan kuwa ka dhacay nolosha way ka badan yihiin kuwa xaggaa jooga ee nolosha ka dhacay marka waxaan qabaa cabdixakiim waan la qabaa fakerku wuxuu egyahay fakerka cunsuriyadda marka la yidhaahdo anagu cidmada maydaan arag cunsuriyadda maydaan arag iyo doodoodana maydaan arag cunsuriyaddu waxa weeyaan mar alla marka dhaqaaluhu hoos u yar dhaco waa la odhanayaa qofkaas ajaanibkiibaa shaqadii qaatay waxa inagu maalin waxaa dha inaad tirahdaan roobku wuxuu u dii waayey qurbajoogii baa aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantihiin mikrofoonka nimcadi inaanu cunsuriyeyna qurba joogta maya fikirkeyga maya xildhibaan aad baan kuu fahmay si toose cunsurinimadu haddaynu ka sheekeyno waxay qaadanaysaa muddooyin fara badan in dadka la fahansiiyo waxaan tusaale kooban soo qaadanayaa waxaa laga yaabaa aabbahay waxaa la dhashay 8 inamood qayb ka mid ah qurba jooga waxaan qabaa 90% nolosheedu inay ku xidhan tahay ayaga jaamacadda iga soo bixiyaan familigeyga wax u soo diraan wax kaloon u baahan ay soo diraan maalinta aan la hadlo si sharafan buu ila hadlaa adeerkay igu raadeer maxaad u baahan tahay waan ogahay doorkay leeyihiin inay hotel dhiseen baan ogahay in dalka investment badan ay ka sameeyeen baan ogahay laakiin waxaan leeyahay ninka dibadda ka yimiday waxaad wadato hadday dhaqaale tahay hadday dhibaato leedahay hadday waaye kala wadato ii sheeg aniga oo igu dhaylan anigaad ii soo laabatay waxaan doonayaa inanka qurba joogu maadaama walaalka yahay in adeerka yahay in abtiga yahay habroodaga yahay saaxiibka yahay dadku friendska saaxiibka lay moodaan saaxiibka ii dhow yahay dhaliisha adiga ku haysata anigu aan ka saxay mudan xildhibaan aniga ii sheeg anaa ku ogeey wadankii baan joogaay ii sheeg dhibaatada kale jirta san solution u heloon idhaahdo waxa labiskaaga qaldan hawlaha kala qaldan anaa kaaga waayo su'aal kale wax yar inantaas waxay tiri magaciigan Faxiya waxay tiri habluhu yaanay fikir isu bidin inay nolol badan ku qaataan lacagta aniguba ma jeclinaan $3,000 ama $2,000 anigoo xaafadayada ka imanaya oo hooyaday investment intaa leegi soo gelisay jaamacada intaa leeg liiga soo bixiyay inaan ninkan ka qaado $3,000 waxaad soo xisaabisaa 16 years kan soo baranaya waxa la ila garab joogay jaamacadii baa liiga bixinay 250 maanta Soomaaliya waynu joognaa jaamacada waxa lagu dhigtay 250 waxa ay raacsan maalin kasta koobi $1 aan soo qaata buug baa ii garab socda qalin baa ii garab socda labiskayga baa ii garab socda intii kale ee bulshada ku dhex jooga ii garab socota anigu bayna qiimeeyo gaareeyo ka dhigo 1500 ama 2000 ma ahine laakiin qurba joogtaynu meel isu nimaano waqtigii baa ugu gabaabsiya waqtigii baa ugu gabaabsiya horta in cadaalad ka tagno maaha cadaaladina ka tagno maaha cabdikariim baa dhamay horta qurba joog iyo qolqol joog marka laga hadlayo positive-na way leeyihiin negative-na way leeyihiin marka laga hadlayo investment ka fara badan ee Soomaaliland ka sameeyeen waxa ka qaalisan hal qof oo kaliya to inaga dhintay badda Liibiya hal qof ba ka qaalisan waxaan investment magaalada lagu sameeyay sababtoo qofkaas wuxuu leeyahay uu haystaa wuxuu leeyahay maanta ka tahriibaya waa qurba jooga berrina wasiir buu noqonayaa ama dhiiji buu noqonayaa kaas marka qofka mu'minka baa nafta mu'minka adduunyada dhan waxa yaalo way ka qaalisan tahay marka materialkan dunida inoo yaala hadday eegaysaan dadkeena asaa ka qaalisan halka yaacaya waayahay daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkii caawa aynu ku falanqeynaynay faa'iidooyinka qurba joogta iyo weliba dhibaatadu ay leeyihiin waan filayaa in marti sharafta mas-uul iyo weliba marti sharaf kale oo kasoo qayb gashayba ay ka dhex guuxayaan maxaa loo sii wadi waayey maxaa sidan looga hadli waayey waxaanu ballan qaadanay haddaan nahay TV-ga Universal in aanu sii wadno barnaamijyadan mid lamid ah oo aynu kaga hadli doonno mawduucyadan iyo weliba mawduucyo kale oo aad filaysaan isla markaana aad tabasaan barnaamijka waxaa sidaydii daadihinayay anigoo Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseena iyo Xamdi Xaaji Oktoobar muwaadinka Hargeysa jooga amba dhulka jooga iyo waliba ka qurbaha joogaba labaduba waa muwaadiniin waa dad dalka u dhashay waxaan leenahay danta guud laga wada shaqeeyo intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono nabaday barnaamijka horta xiisa ayuu lahaa ninkaas iskaafka xirana aad ugu mahad celinaya waayo baasho aad shiday marka horta aad ayaad mahadsantiin kulligiin meeshaan waxaan ku samaynay discussion ama dood sidaad u taqaaniinba dunida oo dhan sidaan waa loo doodaa sidaan oo kale fikrada waa lagu kala duwan yahay laakiin waxaan rabnaa anaguna inaan barano laftirkeennu inaan afkeennii hooye ee Soomaaliyeed aan sidaas oo kale ugu doodi karno halkan waddankeenana aan maaragtay ku qabsan karno doodaas marka ingiriiska waa lagu dhex dari karaa laakiin waxaan hadda inii sheegayaa waa maadaama uu yahay barnaamijka ugu horreeyey waxaan rajaynaynaa inuu
kuwa noo soo socdaana nooga fiicnaan doonaan agaasimahana aad ayaan ugu mahad celinayaa بسم الله الرحمن الرحيم waxaan sidoo kale u mahad celinayaa saaxiibkay weli oo runtii aad igala shaqeeyay barnaamijkan maanta sida noogu dhaco waayo mataqaanaa imika waxa laga hadlayay muxuu ahaa dooda wax ku saabsan qurbajoog maxay faa'iido keeneen maxay khasaare leeyihiin tan wax ka mid tahay faa'iidooyinka inoo keenay qurbajoog maanta uu noo yimi arrintan nagala shaqeeyay runtii wax badan inoo kordhiyay runtii aad baan ka mahad celinaya arrintaas talabaad waxaan u celinaya dhammaan martida sharafta lahayd halkan naga soo qayb gashay waxaan ku ballan qaadanaya inaan barnaamijyo badan oo noocan oo kale idin samayn doono insha Allah oo muddooyinka soo socda idinkan waxaan codsanaa nagala qayb qaadataan nagala shaqeystaan meedu waa meesha laga saxo weeyaan ummadda moogtay waxaan u baahnaa wax badan in dalkan ka saxno dhibaatooyin fara badan baa jira runtiina hawshaas noo socota insha Allah mustaqbalka dhow aad u mahad celinaya mar labaad iyo saddexaadba